السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada meeshan kusoo dhawaada kan waxa waaye business account oo Facebook business account oo mid kale oo aniga aan leeyahay. Kan marka waxa waaye midka hadda aan ugu talagalay koorsada iyo wax kale ma qabtaba iyo agency oo Google Ads iyo waxaas uu sameeyo macaamiisha iyo bis ayaan ku manage gareeyaa wax kale kuma sameeyo business account kan. Marka waxaan rabay inaan quickly in la share gareeyo qaabka aad macnaha customer-ka aad hesho aad ugu soo diri lahayd business account-kiisa. So kow horta waxaa muhiim ah in customer-kaas aad u samayso business account oo macnaha Facebook-gooda aan ku isticmaalin oo macnaha ad account cusub oo business manager ina u samayso kadib business manager-kaas iyo ad account-ka aad ugu sii dhex samaysay iyo billing-ka wax dhan ayaga aad iskugu xirtid because ayagu inay lacagta la baxaana fiican oo Facebook ayaga ka qaataan oo adigu bis aad ahaatid advertiser oo wax kale yihiin admin-ka ahaw iyo advertiser waxaad ka ahaw laakiinse haddii macnaha macaamiishaas aad business-kaaga aad ugu xirtid aad xayisiintii waxa ugu samaysid oo 3-4 macaamiil ilaa 10 macaamiil aad haysatid oo business-kaaga ay xayisiinta aad ugu samaysid oo kadib lacagta adiga ku siinayaan oo meeshaas waxa ka samaynaysid waxa haddii business account-ka uu ka xirmo business-kaaga meeshaas ku baabaa. Marka waxaa fiican in customer-ka usoo samaysid business account oo Facebook-oodii waxooda dhan aad usoo samaysid casharada koow aan sameeyeen aad ka fiirsatid kadib markaa usoo samayso kadib aad isku soo xirtid oo ayaga aad isku soo dirtid. Marka hadda marka waxaan sameynaynaa Mr. Bossless ad account-ka aan sameynaa koor ayaan waxaan ka dhigaynaa macaamiil. Marka kaas maadaama macaamiil camal aan u dhigayno waxaan rabaa marka qaabka lagu soo diri lahay inaan tuso. Marka kow waxa u baahan tahay business-ka oo customer-ka inaad gashid ama ayaga markay galaan qaabkii u sameyn lahay inaad tustid. So marka aad business account-ka aad soo gashid so kan waxa waa marka qaabkii customer-ka ay kugu soo diri lahaayeen. Marka waxaan iska dhigaynaa kana waxaan ka dhigaynaa customer-kii Mr. Bossless ad account-ka aan isla sameynayna waxaan ka dhigaynaa in agency ah. So marka meeshan ay imaadaan waxay tagayaan under users meeshan oo drop down-kan oo users ay ku qoran tahay kadib waxay ku dhufanayaan partners. So partners markay ku dhuftaan markaas ay wuxuu leeyahay ku dar qaf. So marka meeshan aad ku dhufanaysaa marka meeshan ku dhufatid ID oo macnaha business ID-ga u baahan tahay. Marka Mr. Bossless business ID-giisa ayaan hadda copy soo dhahaa. Haddii aad u baahan tahay business ID-ga meesha laga helo oo macnaha waa kan meeshaas ayaa kasoo heli kartaa. Haddii ad account-kan ku dhuftana geeskan kale kusoo baxaa. So meeshaas ay ku qoranta ID / that's the ID oo macnaha business-ka. Marka haddii aan ku dhufto xaggan kadibna aan partners ID-ga aan xaggan geliyo oo Mr. Bossless kii ahay ID-giisi waaye. So marka next kadib meeshaan soo baxayso kow waxa u baahan tahay inaad page-ka ku dirtid kadibna ad account-ka aad access u siisid. So marka hadda waxaan la siiyay permission assets waa meeshan oo to Mr. Bossless. Marka meesha geli isku markii asaas soo qabtay ad account-ka u yaqaanaa isku markii soo qabtay. So marka Mr. Bossless ad account-kiisa ayaa permission hadda u helaynaa. So marka haddii aad ku dhufatid oo kale page classic page oo markaas page-ka adiga markaas aad rabtid aad ku dhufatid oo page-kana access ku siina aad tiraahid kadibna ad account-kan access aan ku siina aad tiraahid oo Mamal agency ama kan oo Google agency-ga oo BBC agency ku qoran tahay midka markaas aan rabo ayaan Mr. Bossless aniga waxaan u sii karaa access. So hadda haddii markaan ku dhufto ad account-ka markaan ku dhufto kadib waxaan leeyahay advertiser ka noqo ama create ads ama waxaas oo dhan ama kulliyan waxaan wadigaaba admin oo markaas waxaan leeyahay saas ayaan kusoo darayaa. Haddii aan ku dhufto pages oo kadibna pageska aan raba aan kusoo daro kale kan aan ugu soo daro marka waxaan wadigi karaa saas ayaan ugu soo diri karaa. Marka saas ay customer-ka ugu soo diri kartaa waa very easy just 2 clicks kadibna save ayaad lehaysaa saas aad ugu soo diraysaa. Marka hope casharka inaad fahamtay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.